نول براتامو وروح لا يسكو صبحو بديدو حاوين كابا وانت تيك السيداتا runtii waxaan wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena fanka iyo suugaanta oo hadaan oo kala aad ka daawataan shaashada madaxa banaan ee Bulsho TV xaruntiisa magaalada Boorama barnaamijkan daawadayaal saad ka warqabtaan waxaan ku soo marti qaadaa fanaaniin abwaaniin jilayaal iyo waliba cid kastoo ka dhex muuqata suugaanta iyo halabuurka toddobaadkan ayaad filaysaan daawadayaal inay bartidayda noqoto waa halabuurada daada yar ku soo biiraya suugaanta iyo halabuurka Soomaaliyeed وأوان ورسمع عمر حسين أو كمية دائرة كسر بيري سجانة يا لابوركا سومالية أدبن كسر دوميني كسر أويني يا ورسمع كسر أويني يا برنامج كفنك يسجانة يستوديو برشة تي في. وريني معاد بدو محسن تاعي برشة تي في وكده هاي وأنا كده واندونا لكن هرت أبوان من قاعد نولي حلا ورنا ذاك كان حنا وحنا حلا ورنا أبوان مد واحد الله مركي أبوان مركي اللي يقف عفرتها بالصوت كونتن ملاها. أبوان كاري. طبعا كل سوغاني كلا دون باتريسا التاريخ هذا قصواكم هي. كنت وسؤال هذا في عن أنا هرداد أنا مش قد واحد حاليا قرية. واحد كل شيء قبل كجدو خاصة دقمة أنا عطيه قبل كجدو. iskuul kaygii dhexe hoose waxaan kaga soo baxay magaalada yiraahdo Baardheer ee ka tirsan isla gobolkaasi Gedo dugsigii sanad waxaan kaga soo baxay magaalada Muqdisho khaatana waxaan arday ka bartay jaamacadda Amuud Culumta Dhaqaalaha iyo Siyaasadda yaani wax kale oo sii sheegay ma arsaneyn dabcan kale taariikh mudan bay tahay waxaa jirta suugaana iyo halaab waxa maasooyin kala duwan baa tirisa bal carqaladii aad kala kulantay muddada intaa leeyahay halabuurka ku jirta horta carqaladuhu dib iska badan yihiin inta badan markii abwaan ama fanaan ma ka soo qaaday dadka suugaanta sameeya inta badan waxa dhacdo fasiraada la saarto wax uu sameeyay sidoo la jeeday maana sida kale bulshadeena Soomaaliyeedna inta badan waxa ku badan indii xaqi fiicna waxa laga yaabaa xaq xun laga eego inta badan carqaladaha ugu yimaado waxa ka mid ah laga yaabaa wax u jeedin wax kale loo fasiro wixii carqalada iga timaado dadkuna maanta dee awooda siyaasiyiin inay wax wada fahmi karaan qof kasta waa siyaasi maanta bulshaduna siyaasad baa ku wareertay oo laga yaabo inaad gabar amaanaysaa oo ninkan waxa uu jeedin dana gaar u jeedan marka carqaladaha ugu badan oo naga hormaaday waa xaga fasiraada bulshada ay saartaan waxaan sameeyay laakiin carqaladan ma soo karay taas ay u dhacday runtii ma jirto maasada koobaad baynu soo qabanaynaa warsamo Soomaali dhalad baa la yiraahdaa aleeyahay waa maaso dhinac kasta oo eegaaba dan gaar ah xambaarsan tahay goor ma tirisay maxaa u tiris maasada Soomaali dhalad waxay soo baxday sanadkii hore ee 2014 qiso waxay ahayd ku dhacday inaan saaxiibanahay ayaan bay isbitaal joogay إنه بحث سنية صح أصحاب معي بختار كيني كدويني بعد أركان ماني كستاس وسوي حكيين أتوقف إربطكم بدي ربي كان يصير أيوه ما قرنا يصير حكيين إنكي بختار كوا ورا السنة محمد بليرة أنا مش فاهم كرنايس واسيو شكوي بشكل مرك إنني مدول السعودين كدمنا وعي ملك بحث تلفون وسكاين إيميل وسكاين ريكورد وسكرينين ما صار ما ندرت ساسا كتير. waxay leedahay simantaan jeclaayay sababada wadnaha iyo saableyda feeraha sayrayaasha dhiig iyo qalbigayga saaqday soodintii jacaylkaay muddan kugu sahwarayo sawirkaaga raajo inta kaaga soomo hurdo seexan waayo dhulka waan sodcalo safar baan ku wada maray
saylac ilaa iyo harar sanaag ilaa iyo hawd salal ilaa iyo taleex sulmadii afgooye soonihii kismaayo iyo laascaano soor iyo saaka ilaa jilib simanay dhammaantood socod baan ku wada tegay dadku ima kaasixin ruuxan ku su-aalo suuradaada midabkiisa naaga muu garan hadda meelaad ka dhacday cid garanaysaa ma weli maan arag cid ii sheegta haa simanay xusuustii weli igama suulino naf baa kuu silcayso cashaqu silsilayo seetiyo hogaan iyo dabar ku saaqee simanay bal ii sheeg halkaad ku sugan tahay ha raadiskii baadigoobki baa lagu jiraa quruxdaada siman iyo sida saadirka u qoray haddii aan sifeeyana ka sargaari maaye bal aan sadar ka sheegon sugaanta ku cabiro simanay waxaa tahay soomaali dhaladoo midabkaada saxan iyo timahaaga soohane sibrahaada gaariyo waxaa tahay soomaaliya sooyaanka reer carab lafbaa kuu silcaysee simanay bal ii sheeg halka aad ku sugan tahay dee hablaha carbeed hablaha carbeed aad u qurxayn maadaama kusoo qaatay ha simanay akhbaar baan inta samada duushiyo suxufiga wax qoriyo kuwa saadaaliya cimilada saynisyahan dhammaantood akhbaar saabisiiyo inaan weli silcayo isrumeeye cashaqu maansalagu ku imaan sidaan ahay lagu tegay dee intii samada duushay ama diyaarada ahaato ama shimbira ha ahaada saxaafadii wixii dhan waan u geeyey saynisyahanadii cilmi baarayaasha caalamigaan lagu dhiibay laakiin weli wax sheega muusa aragina taa inay guri ku nooshaana diyaarad raaceen bad ku dhacday weli muusan helin inaan weli silcayo isrumeeye cashaqu maansalagu ku imaan sidaan ahay lagu tegay mise way kusoo jeedoo dunidaadba saarnayn dee intaa baan socod maray meel kaloo kaa raadiye garan maayo adeerba dunidaadba saarnayn diinka socodka gaabshaan fariin sugan u dhiibo qoloftiisa saaroo salkaan u dhigay ma socod gaabnidiisu weli sii siqaayo mise sarinka cawskiiyo qodax baa ka siibto ammaanadii kumuusii dee bahalka diinka lagu socod gaaban yahay inta badan bulshadu meelaha isdhahaan iyo maxaad ugu dartay maasada diinka socodkiisu aad buu u socodkiisu u gaaban yahay ma muuqaal qurxano waxaad ugu dhiibtay bay dhaheen heesaha soomaalida shimbir yahow ma duushaa ma dabaylaad raacdaa waad maqli jirta waa loo dhiibay suxufiga sidoo kale marka waxaan isiri maadaama jacaylka sar yahay wax laba qof keliya ka dhexeeya ilaa goorka la gaaro diinkani waxaan haddaan shimbirtay u dhiibo suxufiga iyo dee hawsh wey horay ka baxaysa laakiin diinkan qolofna uu leeya wax lagu qarsan karayo marka ku qarsadaan asaa gabadha ugu karid laakiin weli muusan gaarin baan umalayn diinka socodka gaabshaan fariin sugan u dhiibo qoloftiisa saaroo salkaan u dhigay ma socod gaabnidiisu weli sii siqaayaa mise sarinka cawskiiyo qodax baa ka siibto ammaanadii kumuusii simanay adduunyada sakuneeflahoodii warka waa siiyo waxay saacidayo sibnaaga sheegaa simanay maan arag sidee baan balyeeraa nafta ma isiseen jaasurka ma isgooyaa sunta ma isisiiyaa mise waa sugaayo sadka waa iska dhowraa labadaas siyaabad kala saari waayo midee ma sameeyaa abwaaniin badanna way kasoo jawaabeenoo ninba qaar baa leh sunta iska cabo qaar baa leh iska sugo samirka badso marka maasada xaggaada ku egtahay osama waxaa jira shay kastood qabanayso shaksi baa kaalin kaa siiya meel kastood gaadho maanta qof baa ku oran kara kaalinta noocaasaan kaa siinayaan ku garab qabanaya ma jirta sugaanta inta aad ku guda jirto inaad xusi karto oo kaalin kaa siisa halabuurnimadaada ama ku tilmaamta ama wax kuu sheegto maanta aad xusi karto maraad ku sugan tahay barnaamijka fanka martina igu tahay xabsay nimcay waa su-aal muhiim ah way jirtaa runtii dadaan is oran karayo waad xusi kartaa ha horta markaan leenahay dad garabkaasi ma haddii wax kula sameynayaan laakiin dee fikradda iyo saan ka daya saan inaan saaxiib nahay oo la yidhahda abdulfarax xasan ibraahim maxamed cabdi dhalinyaro badan ragaasaad xusi kartaa kaalinkaasi maasada bohoryo alayla jiray haddaan qaldanay ha haye bohoryo goormaa tirisay muddada tirisayna goormay ahayd bohoryo waxay ahayd sanadkii 2012 habeenyada ka mid ah fasax baan uga dhigay jaamacadda maantoo kale imtixaan baa dhammaaday iyo birtoo kale imtixaan ay ku aadanay 3 bishii 7 ee sanadkii hore
inay ahayd baan u malaynaya 2013 kan ilaa 13 nin baan isla jiifnay dadka qaar baa jira markay seexdaan wuxuu ugu dambeeyey markaa fiidkii ku hadleen inta badan ka sheekeeya markay seexdaan ninkii ma garanaya dee waa soo baxaya magaalada salimaanaya sheeke u ah marka waxaas ninkii inuu telefoon ku hadlaya moodayay dib baan ka dareemay ninkan inuu iska qarqar ku jiro sheekadiisii baan waan yaro qoray waan iska baxnay subaxii waan baxnay goorama ka baxnay hargeysaan tagnay hargeyso subaxii aeroboortka anagoo joogno howlahayii markaan dhamaysanay aeroboortka weytinka anagoo joogno qaybtooyinka diyaaradaha waan maqlay ninkii oo hadana hees qaaday dheeraha wadadii ninkii dheeraha wadadii wadda kula fogayay walbahaarka corona kasoo maray hees horey ahayd sheekadii baa ugu soo dhacday marka taleefon baa sitay marka noodkaan ku qoray maasada waa maasada keliya wax dhulka ka sarreeya lagu sameeyey diyaarad baan saarnay maasadii adig hal saac iyo bar bay sii socotaan markii hargeysa laga tagay muqdisho loo socdo diyaarad hal saac bar meelaha bay sii socotaa hal saac barkii baan ku dhameeyey ee maasadaana kaa sameeyey kore xaleedka hawshaas ku jirta maasadaana qisada baan ka sameeyey waxayna ahayd bajaay bilo qurxoonaya adduunyada barkeeda ay yartii aan u bogaya wadnaha iyo beerka iga haleeshaay marka hore bariidada bulshadii dhammaanteed beledkii ka sheekee bariye waan maqnaayo waan kuu basaasoo barqadii salaadii baabuur ordaya beydka igu mido waan soo boqoolo boorama ka soo baxay magaalada boorama ka soo tagay waxaa soo bafleeyaba qoraxda barhaytaa beledkii hargeysaan baabuurkii kaga haray ilaan baaqan maayo baasaboodka lagu baxo boostada ka goosoo daqiiqada barkoodii baalaleyda duushay falayd banagooda hawadan u baxaya diyaarad baan raacaya baajaay bilic qurxoonay safarkaa badnaayo bogaan kaa tibaayo baydad baan ahay daqiiqada barkoodii baashii istaagtoo bayloodkii u dhigay baylka oo iska bixiyo caasimadii loo bogay xamar ee bilaawacan kuma baaban saaka nin meeloo caddahay meel ka madow meel buu socdaa ninkan kuma baaqan saacad bulshadii tolkaygii barbaartaan isbaranay baryo kala maqnayno si xisnay badankood bogo way isku qabano salaan way isku boogno xiiso uma baabiyo anigoo ka bogo weli iyo dadka hore isku garanayay magaalada waanu isalaanay laakiin weli kama bogan barbaartaan isbaranay baryo kala maqnayno si xisnay badankood bogo way isku qabano salaan way isku boogno xiiso uma baabiyo anigoo ka bogo weli baagii qaatoo borsadii la carro boostajadii tagayo baxshay balsadii baskii baan koreeyo baardheer uga baxay waxaan kuu socday laamigii ballaarnaa waxaa boorka tuuloyo baasaba baydhabo soo galay dee markii batanta gaari raacan magaalada tagaari waa laga degay waa layaro nastaa waa layaro cunteeya rakaabku badeeyey baabuurkii kama tegin baastiya bariisiya looma baaqi kabariyadii alma ruux bukaanoo badar iyo cuntiyo baastiya bariisiya ma qaadin booliyo banaankaan ka taagna dee dadkan wax cunayaba anigu warkeyga meel baa iya cad banaankaan ka taagna baabuurka kii wadi kama baxin goobtii waxaa sii buuxeena ugu dursii dhex boodnaba qorax balbig soo tiri baa dheera leeki baabuurkii ka degayo buundadii ka dhacayo beydkiini tagayo markaan ku bilicsaday indhihii basaasnaa booyii waayadan intaa boorama jiray indhihii basaasnaa booyii waayadan soo kuwa bogsaday oo basaastii ka dusho qalbigii barko dee wax dhiman bal haddaan ku arkay xaggiyaasaan lagu soo koobay waxaa jirtaa orsamo halabuurka marka la eegaayo qof danikeenta ayaa way jirtaa iyoma u leedihin adiga kasuku familigiina ma kasoo jeedaan cid fanaaniina awaaniina ama halabuur un dhan kasoo gala iyoma u leedihin halabuurnimada horta suugaanta waxaa la dhahaa 3 bay u qaybsan soomaalida waxay dhahaan waa danikeentay hawli keentay iyo maxaa la dhahay hibeylaha may waa hidaraac iyo hawl keenta iyo mid ah ani ahaan inta badan markii 3 loo qaybay soomaalida waxay sheegaan dee midda hawl keentayda wafciil baa ka keenay midbaa jacayl ka keenay taa baa la sheegaa inta badan anu ma jirto cid ma jiro laakiin haddii la odhan lahaa maxaa kaa keenay hawl baa iga keentaan odhan lahaa ayaan aan waxaan dhiganayay sanadadii bilowgii dugsi sare
bay ahayd. waxaa dhacday galaas baan dhigan jirnay dugsiga ha galaaska waxaan ku nahay 12 qof inama yahay isku jirtay ha sideed baa ma afarna waxaan dee way imaan karaysaa xiriirde inuu laba qof dhex maro ha ina yaroo galaaska dhigato bay iska kaaga gashay taleefon ma lihaa ina taleefon ma laha dhibkan haysto waxaan sameeyaa marka taleefonka ama walaalo kale ama hooyo kale taleefonkeeda aan ka garaacayo ama kan hooyada iga soo garaacayo maalinkii dee iskuul marka isku yimaadaan isku arkadayna odaga aabaha xisaab dhigo aabaheeda dee xoogaa waa laga fiican yahay ilan macalin bay dugsigii idigooda yahay ayaan iskoolka dhiganaysaa adigana iskoolka waad dhiganaysaa marka way yara dhib badantay adigu doo waxay waraaqday qalinka is saarnaadaanba xaafadana waan isku yara dhownahayo jaar baan nahay marka maqribkii baan kitaab baan ka raacdaa cumdatul axkaam baan ka raacan jiray masaajid xaafadda waa loo sii mara ha galab baan marka masaajid baan usocdo waa la adimayay gurigaan ag marayo gurigoo la yala turturiyaan markii walaa guriga qofbaa ka xanuunsanay marskaaga marayo dee dhaweeba wa istaqaane masaajidka hadheeyo gaamaanayo warti yareydii oo caaway ah ti yareydii caaway dibala harusayayo xaalku caali maaha marka axaadiista habeenkii marka la akriyo habeenkii labaad waa laga baxaa ilaa 5 xadiis baa laga baxaa kasoo baxay guri sheekh baa xagga kala fadhiyay markaan ka baxay dee maskaxdayga jirta arrintaa maskaxdayga jirta raawiga sheeg baa lagu xadiiska saanira ayna magaceeda canabi heblo inaad ku dhawaaqdo ayada magaceeda canabi heblaayaan waa tii masaajidkii la qoslay marka ilaa dad baa ku suganoo xoogaa waxaa la marsanayaa kutub iyo xoogaa sheekadii dhalinyaradii baa faafisay marka way fogaatay sheekadii marka sheekadii fogaatay inantii oo laga tagay wixii baa isku qaban waayay waan saa sameeyey marka naftayda ayaan murugooda yidhahda wixii igu horreeya sameeyey ahayd wixii igu horreeya sameeyey waa 3 tulo way bay u gaaban tahay waxaa leed naftayda ayaan murugooda haw qofaa rabin muxubiya jacaylka kaama suugay libintiiyo sharafta mudnida meeqaa maalin kula rabin milgeynaan kuu sidin ruux kaa maalmin mudane naftayda ay hamuusoon haw madiixi midhagsiga midka dhacay galgacalka mawjada badweyntana hama qoran weligaa hirka maagidiisanayaan boolka kugu riday adeeraas mashquulin dee ayadu way iska tagtay adiga noloshaadii kala dhinacaad ka raaci karta ka raaci tanaa lagu meel maraayo nafii miisaan kasta mahuraan wax kuu hama jira wax kaa maqan habar buugga adiga qalinkaan iska qaado dee wax kaa maqan oo waxba ka qaban jirin dee hama jira ole horey buu abwaano iyo haddayna dani kaa keenin maxay haydan halabuurka faa'iidaba kuuma haddaan gabayga uurka kii aramikaaka macnaba ma yeesho ama jacaylku walbase kugu ishtaarayni tixwaana ma yeeshaan kii adoonkiina daawadayaashada qiimaha qadarinta naga mudan halkaad weli nagala socotaan waa shashada madaxa bannaan ee bulsha TV xaruntiisa magaalada Buurama waxaana ku guda jirnaa barnaamijkeena fanka iyo suugaanta dhinacaan kusoo noqonaya warsan maxaa kaa farxiya maxaase kaa cadhaysiiya marka qaarkood markaad dareentood ku farxi karto marka qaarkood maad ka cadhoon karto waa su-aal aada u fiican inkastay ka ma istaag faraxda mise marka qaarkood ma cadhoon adugu waxbaa iga farxiya waxbaa iga cadhaysiya haddaan arko qof Soomaali oo dhiban waan ka caaroodaa qof Soomaali oo horumaray haddaan arkana ama gobol Soomaalidu degto horumaray haddaan arkana waan ku farxaa waad ku faraxsantahay masada malaayiin wada xildoon malaayiin wada adigaa xildoon ku jira kee ku jira malaayiin wada xildoona Soomaalida markii la eego maanta waa wada xildoon dee markasta alaamiga madaxweynaha ra-iisul wasaaraha wasiirka cusub aniga ah Soomaalida baa wada xildoona masada waxaan sameeyey 2012 oo markii ugu horreysay aan arkay ilaa 9 madaxweyne musharaxiina hal isu soo sharxi karaa mid kasta wadan buu leeyahay mid baa rabo dhab ka tahay wax mid baa sheeko kaana mid baa dan yaroo hoose eeganayo mid wax uu eegaya laakiin waa 9
oo meel isku soo sharaxay oo musharaxiin magaalada dhan baa boor noqotayba meel kas isgoys kasta marta mid baa gacanta taagayo cadaalad وعضي وحناها وفكريو كانت واحد كنا ضد السلطان ها سلطان وحنا قاني دي جيت كهوس فريستو عند حاجة كحل لكن واجه واحد تميد سلاطين حاجة عرفت لا سودا من بريه السلاطين لا سودا من بريه سلطان بان هاي وبلنا عاصم شرحنا ديوان مشاع مانتي صحافة أنت بروح حوالي سياسي سلطان السلطان سلطان كوهاي ذاك هذا هاي بيشريه وحاله ما دمه وأنا عم بارين هنا والله بتيك كمدي كلها ملايين ولا حدونا ديوان ضد ولا حدونا إنك صار واحد بدورية بيطلع صوت السوي كم هو النوع ده ندنقارو ها منصبا ملايين ولا حدونا ويا بس مي سجاشن كان بدحويدين بصباح waxaa lahayd inaan maasiyo tix sheego inaan meershoon macneeyo inaan gabay soo mareego maskaxdiiyo maanku diidiye horaan uga maanacay taase inaan maantana dhawaaqo inaan geeraaro meersho waxaa igu dhaliyey maanta waxbaa igu mudan naftayda qalbiga maankaa yidhi bulshada waxuu muujiyo masiirka ummadaada sheeg dee bulshadu gabay iska lahaa ninkii la oran jiray abwaankii Yuusuf Shaacir bulshada warbawsada gabay la dhahaan xasuustaa bulshadu dee inta badan waxay wax ka sugaan dee waa muu saxaafadda ama sugaanta bulshada waxa uu muujiyo masiirka ummadaada sheeg inaan masiirka ummaddeeda go'aamiyo wax xaggan ka soo socdaan sheega dee waa waajib saaran masiirka ummadaada sheeg markuu qarankii mugdiyey markay midnimadii halowday markay maxabadu ilaatay markuu nin walba markii qabiil loo miciintay markii muruq la isu sheegtay markii midabkii dalkeenna muuqaalka quruxdii suushay siyaasaddu wada maroortay markuu nin walbaa wax maagay markii madaxnimo la raajay markuu qabqabluhu ismuujiyey markii xooggii dalkeenna markuu hawshiisa moogay markay mooryaaninkooday macnihii xooggii dalkeenna markuu hawshiisa moogay warsoo mooryaan qabiili dalkiima marin habaa nin walbaa inkastaan ciidan ninkaa wadani ها dhibtaa markay timaadee anoo murugadu hayso anoo taana siyaaban qabqablaha iyo musharaxiintaana siyaaban anoo murugadu hayso anoo maqan oo mashquulsan waxaan isna soo mudhiiri arrin maanka igu diiday kun baa masarxii istaagtay mid baa yidhi anaa mas-uula mid baa yidhi ma aha diiday anaa mudana isiiya nin kastoo musharaxa dee marabka inuu ninka kala guulaysto dee nin kasta ahid wax u sheegaya ka noqda ayaa anaa mudanaysa mid kasta saaxiib isku mid baa yidhi anaa mas-uula mid baa yidhi ma aha diiday anaa mudanaysa xilkan ayay magacaaba caawa maatada dumarka iyo dhallaanka mashxaraad hay wada tumaane anaa miigana dad yahow mas-uulkiinii ma ahay ciyaalka iyo xagga wayska malaayiin wada xildoona musuqmaasuquu ku baahay markiiba may odhan haa markiibu yidhin anaa mas-uulkiinii hadii oday kumanaan musuqmaasuqoo dee shaqo kala baan qaban baa tiri adaa madaxweynaha adaa madaxweynaha markii ereygaa la sheegay dadkuna ay wada maqleen wadanigiisa uma oran mushkilad weeyaan dhib weyn mar walbaa laga shalay dadka qaar baa jira dalka u damqada waxyaalaha kala ka damqado yidhahdeen waxaa mar baa laga shalayna iska qabto hadda intay dhow yihiin mar walbaa laga shalay raggii maqaarsaarkan keenay mahigiya nicholas kay obama iyo banki moon guddoon marxabo suuban iyo mas-uul weeyaan ma oran dee yaaba noo keena wax dee annagu haddaanu aanu isdubarno dee waxbaa kasoo bixi lahaa laakiin waa noola keenay dee mid la sitaag leeyihiin adeer doortaan weligeeda dee waxaan ku dooran magaalo mayna ilan waa hadab ma soo wuxuu doono waa mirtay markii la yidhahda soo dhawow madaxweynea tahay ilan waa hadab ma soo wuxuu doono waa mirtay intuu dhowfu mar duulay intuu maal u yabooshay intuu soomaali magaceed intuu malaayiin ku helay halkaa kuma soo macaashi daligii dad baa loo dhiibay laakiin dee waxa soo galaa asagu baa intaa waa marag madoonta muslimka waa wada arkaa soomaali waa wada marqaati wax badan baan madowgiiyo mugdiga guuraha marnee ma doonaa madax mas-uula mid mawlaha rabbi yaqaan mid aan musuq noo horseedin
marun midnimada u hesha shisheeyaha baas ka maarmaa micnuhu ahaa dad yahow sidaan midhaha u gaarna sidaan dib ugu midoowno qabyaalada ka maarma oo midnimiya qaranka raaj haddii ay jirto haddii qabyaalada laga madax banaan yahay dee nin wax qabanayo lama eega maanta laakiin yaa reebela adoo og inaad dee qofkan usan waxba qabanayn yaa waxaad ka doorbidaysaa dee isku reer baa nahayo kano ha taasaa badatay marka taa haddii laiska daayo waxbaanu soo bixin asaan rajeynayna soomaali guul baan u rajeynayaa waan filayaa jid kasta oo kaalin ka siisayna insha allah wala hagaagi maanta fanka iyo sugaanta soomaaliyeed heerka uu taagan yahay wadasoonta maxaad is oran kartaa mustaqbalka fanka iyo halabuurka soomaaliyeed wuu iska bedeli karaa sidaan ognahay maantay luuqad ahaan soomaalida luuqadii baa sii dhumayso dhaqankii baa sii dhumay laga yaabo qaar baad arkaysaa nin baa doonay inuu gabaysan gabaysameeyo erey ingiriisaad ku arkaysaa marka qaar hadda soomaalida ku hadlaya dad soomaalina wax buu fahansiinaya horta luuqadii way sii dhumaysaa maalin hore waxaan suuq baan caana ka iibsanayay maamo ma filayna wax qori taqaano caanay baadiyaha ka keentay maamada markii sheeg baan qoray say ugu tiri dee ma qori taqaano wax laga jeeda inay fahansanay baa laga yaaba haddana si guud bay u garanaysaa horta luuqadii way sii dhumaysaa halaburada iminka jiraana dee waxay ku sifoobeen dee in dee dadku wax u sheegayo haddii erey weyn maanta ereyaan la fahmin ku qoran dee cid dhegaysan mayso dee cidna fahmi mayso marka wuxuu ku qasbayaa qof kastaa in dee suu dadka wax ku fahansiiyo ereyday fahmayaan waxa uu sheego laakiin haddii la helo wasaarad waddanka manhajka waxbarashadoo kale wax laga bedelo dee soomaaligii lasoo nooleeyo abwaaniinta inay gacan ka geystaan runtii waxaan oran karayaa meel fiican buu gaaray meesha horuu joogay ma filayo inuu ku laabanayo oo dee dadkii hore inuu ku laabanayo lamaha laakiin intuu dhumi lahaa waxunbaa laga gaari karaya fikirka jacaylka ama anu hal isnacaawo ma qabo hal isjeclaado haddii la isnaaco dee waxaa ma soconayaan laakiin inuu jiro oo adduunkaa saameeyey fikirkaada mafulay jacaylka dee haddaana la isjeclay badi guri iskuma tegeen waa gartay waxaynu soo qaabanaynaa maadaama ka hadlaysa jacaylkaas bureeqay u sheega bureeqay u sheega bureeqay u sheega waya maxay tahay bureeq yaa loo sheegaya gabar soomaaliyeed waa gabar soomaaliyeed ma ajnabi baan u gabaynaa maya kuwi waa gabar soomaaliyeed waa gabar sida magaca ka dhex muuqata bureeqay u sheega xaggan waxaan tagay gobolka gedo degmada celaadee muddaan soo joogay maasadan horta waa maasada keliya ee saameynta yeelata ani saameyn ugu yeelatay ee dadku fasiraad kale intay saarteen macnayaal badan la saaray deegaanka dadka degan aada isuma garan dadka waa weyn dee laakiin dhalinyarada aada isuma garanayna hees baa jirtay heesaha soomaalida markaan eego ugu caansan heesuu leeyahay xadraawi aadan xasanaansa masal qaba beledweyneya heestaa baan dhegaystay saan iriyo abwaanku dee abwaanka haween anoo isku garbeernadi halkiisi baad dhigi kartaa aan lahayn mare laakiin isku daygu bal isku day mar waxaan ka dhigay inaan magaaladii imagination weyn maasadan wax dhacay maaha waxaan iska sawiray waxaa dhacday marka magaaladii baan kasoo baxayay marka waxaan ka dhigay inaan magaaladii gabar ka bartay anoona weli anoona weli dee ama si fiican isu sheekaysan jidkaan isu aragna mooyaane in la yiri wey jaamacaddi waa la furayaa dee waad baxaysaa caaw xadraawi baa baasiis waxaa ku jirtay dee
ciidan waa la qaadayay magaalada laga qaaday asna dee inuu joogu rabay maasadan saasay ahayd inkastoo dee deegaanka fasiraad badan laga saartay oo dad deegaankaa dee hiblaayo kula jooday iyo hiblaayo is arkeen iyo fasiraad badan la saartay laga yaabo anugu markaan wax sameeyo fasiraadda iyo macnaha marka ani kala jeedo tuka macaan laga yaabo inaan lay saaro ha tuka macaan midii saareen ba maasada bureeqa igu sheega saasay ku baxday waxay leedahay anoo bilo maqnaayo bulshadii wixii soo booqday ehelkii asxaabtii iyo barbaartii soo bilo gadaashood calaado uma bixinoo bankii hadaa iyo bardihii maantay bardaha waxa weeyaan magaalada waxaa ku yaalo suuqa sariibada suuqa magaaladaasi geed weyn baa ku yaalo bardaliga sariibadii la sheeganadii lagama agfoga moogta bardihii maantay babaygii bardihii maan tegin babaygii iyo cambaha iyo caanihii ka buuxaan babaygii iyo cambaha iyo caanihii ka buuxaan soobaal kamaan marin soo bidhaan qorxoonoo bogo u jeclaaday bardihii kumaan arag soo adeeg loo soo diray soo bardihii kumaan arag soo bidhaan qorxoonoo bogo u jeclaaday bardihii kumaan arag soo baaqaysheedii kuma eegin baalaha ilaa waa bureeq oo dhaqan lagu barbaashay soo xishood lamay bixin inta badan waxaa caado ah dee dumarka baad eegto hoos bay yara eegaan xishood lamay bixin tana way ugu baahdoonaan yar bariso waraysiga ku badiyaa bogeygii kamaan helin yara waraysatay xageed iga soo baxaya oo mid barteedo midigtaan u bixiyo dabadeed bariidiyo sheekooyin barax lamaamahyo badan iyo murtidii ma baanay waxaan iri bureeqo intaa beled maraaye bay iyo bakood iyo baydhabo janno iyo baardheere iyo gadab racaya sanaag iyo boorame laaboon ruux saa u bilaadheer soomaali badankeed baraha degaan iyo kuma arag beledkee badarkeed ku noolay xaggan markaan leeyahay dee xageed ku noolay horta waan dumarka soomaali meel kastay joogaan ismadii meel gabarbaa gabarka qura bas waan ka raaligelinaya gabayga ayla maray maaha deegaamada dhanba dib waa isku mid hablaha soomaaliyeed laakiin gabayga ayla maraan leeyahay soomaali badankeed baraha degaan iyo kuma arag beledkee bandarkeed ku nooleed waxay tiri bureeqana baashow in adeer bumbuulis amaaniyo ma bumbuulis saartay dee qof markii la amaano anigo ka daasaamay sida dumarka wade saas way kii ka daadeen intaasoo dumara meesha joogaa kama qurxani ka yaraa marba buuli saartay uma bogina baashow waxaan ahay bulshada oo banka caalcadiyo beledkan ku noolahay weligay bil kama tegin beled xaawadaadho kuma baahnin weligay beled xaawadii adiga 100 iyo xoogaa kilomitr bay u jirtaa deegaanka isaga dee beled xaawadaadho inkay weli maan teginoo caalcadama ma dhaafin xaggan ubaa jooga markay belan intaa tiri runtii waan u bogayo caqligeeda badan iyo xishoodkeeda buuxee waa barxala inantuy soo wixii bogaygiyo beerkaygu tabaayay ma gutaacin cashaqa waxaan idhi haddaad u sheegad ka war ka badan waxaan idhi bureeqay aniga balbalayo cashaq ugu beerbay bogsan maayo jeera baaqayga maqashay baashaada hadal oo fikirkaaga boobsiya ilaa waa bilxoon dumar barashada tacliintii hidda lagu barbaashay baaqayga mima caqligii garaadkii aqoonta looma sinaado ilaahay baa igu siiyaan umalayn waxay tiri warbaashow beerkaada waxa gala cishqigaa biyo dhigay ballan waxaan ku marayaa inaan kuu bayaashay adna bowahaygu walwala isku beerin dhabartaynu joognaa bardaha ku yaalo suuq weeyo badidii bulshada maraysa waa inoo barkulan kale hadii meesha meel isku waraysta maaha waa inoo mar kale waa inoo barkulan kale belin baa intaa tiri aniga waan u bogayo hadal kama bixinoo buu kale maan furin intaan haddii la yiri meel kale meesha kale ma isweyaad waxan kasii orda ma lahay anigoo bukaan oo igu beermay jacayl oo basanbaas aan ahay beydkaygii maan tegay qadadii bisleyda laga cunayay beydkana soobaal iskama dhigin oo bogooma jiibsa saaqe malaha anigoo bartaydii bustiyo ku hoos jiro banaanka aan u bixin boodaayo mobile baaqiisu yimid baashii aabba iyo bilan hooyada iyo barbaartii imaadan barri waad baxaysaa la biloo duruustii booramaa tegaysaa baaqan maysta caawe isdiyaari baashow bilantaan jeclaadana ballan baan lahayn haddaan baajo caawana beenaaladii oran arrin isqabanaysa ma aha waalidkii dhalinyarada waxay leedahay jaamacadda u furayaa orada balbax
ayadina inantiina bala malan haddaan dee habeenku haysadaa de ma imaan inankii beelow inankii beenaalaha la baxays ku sheegay tala way u baahdo ha beenaala bay oran boqorkii ilaahay baryadiisa maa gelay alla baride gaariga lagu darayaa muu iska joogaaba ha hadraawi baa lahaa birime xumaatan ka wada kooda waxaan idhi boqorkii ilaahay baryadiisa maa gelay rabuu baaqda gaarigu berihiisa guuxiya laga waayo baasiin bara weyne roob iyo weydu butaacan gaadiidku baaqbaa bishidaa laga baasiinkaad ku dhamaa roobkii la doobo weydi butaaca meela mara male baryadii ma socono beydkaa laiguidoo laygu qaad baabuur ama boorsadii bartanka ku dheganayso banaadig maanta xamar baan iga soo taray waraqadaan jeclaadina beelo u qoranahay hoos bay ka xariiqdayba laysma weydiiyay waxa dhacay laisweydiin maayo hoos baa laga xariiq markii xagga maraysaan barbaartiba deegaanka ee halaburadii iyo bal fariino diro bal u sheega balina ha inaysan dee ana beelo ahayn waxaan idhi barbaartii dhulkaygu booyaashaan jeclaayo bankii cadaaye bardihii taga oo buuqa igu sheega beelow inaa noqon boqortiisu qoran tahay dee wax kasta ilaahay baa qoray hawsha saan la rabin ma ahayn masada xaggaa bay ku dhan tahay fasiraada la saartayna waxaan leeyahay de mid fiican baad saarteena kuwada komanka laga soo dhiiban karo halabuur baa tahay warsamo masooyinay gabay kala duwan baad soo saartaa kasaku maxaad qabataa iyadoo ii soo xustay adaynaad tahay waqtiyada firaaqada maxaad qabataa waqtigan firaaqada ahay inta badan horta waxaan jeclahay inaan wax qoraan wax aqriyo marka laga imaado arday baad aad iyo laga yaabaa inaad wax badan akhriso karto sugaantiina dhinacaad ka qorto samaynteeda markaan kasoo tago qoraalka maqaalada muddooyinkii ugu dambeeyey geeli soomaaliyeed waxaa saameeyey taariibka waxaa la idhaahdo waxay gelin intay leeg baad ka siin kartaa dhalinyarta noocaasa adoo halabuurna ah iskuna dayay inaad adduunkaa wax usoo bandhigi karto waxay gelin siin karto dhalinyarnimada horta sanadihii ugu dambeeyey la soo wejiyey dhalinyarada soomaaliyeed dhibaatooyin badan baa ku dhacay inta badan aanan eedaynayo dhaqankii doorsoomay iyo dowladaanta jirta aanu aanaynayo horta tahriibta iyo waxa kaloo aada u badan muqaadaraadkii wax ah labadaaba u badan waxaan isleeyahay horta kaalintayda waa igelineed inkastoo aan dhalinyaradii ku jiro haddana wacyigelinteedii waan waday maase dheer baa jirtay tahriib la yidhaahdo aan ka xasuusto dhalinyaya tegininaha tahriibi weliga badoo la isku tuuriyo laashkoo la tiigsada hanti kuma timaado tacab kuma helaysaa hadeer baddaa yaroo la isku tuuray tacab kuma helaysa ha laakiin deegaankaadii iyo magaaladaad meherad ka furato dee adar waxbaad soo saari karaysaa beerta adiga qoota dhulkeena dee nimca fadhi beerta adiga qoota waxbaad soo saari karaysaa laakiin badoo la isku tuuro ma filayo inay wax ka imaanayaan dee naftaadii ka dhigtay dalka maalinkas dhalinyaro soomaaliyeed oo tahriib oo ku dhimatay laga soo sumcad xumo magacii soomaaliyeed iyo dalkaadina sumcad xumay ku tahay dee adigina dee naftaadi baad heligaysaa marka mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar shanaad dhalinyaro waxaa lagu baafi lahaa in dalkooda ay aaminaan aad iyo aad waa tahay daawadayaal guntii gabagabadii barnaamijkeenu soo gaadhnay waxaan jecelahay inaan ku xidho maasada ah maxaa la isku dilayaa balwarsame iyo goortuu tiriye maasadan sanadkan 2015 soo baxday bilowgiisa kadkii baa ku jira maxaa la isku dilaya maxaa la isu dilayaa waad maqashaa qarax baa dhacay qof baa la joogtay laba isku dhacday kan la dilay wax lagu dilay ma garanayo ka wax dilay wax ku dilay ma garanayo waa marka dhabta u hadlo maxaa la isu dilayaa qisa runtii yaab leh bay ku timi su-aal ay weydiiyeen jawaab waaye maalin maalmaha ka mid ah cafeteriada goljan baana fadhinay asxaabada maamo ka mid ah maamooyinka
ajaanibka ee ku nool magaalada boorame isbitaalka maxayd ee joogaan dhalinyarada meel baa fadhinay adiga shaah baa dhacday kadib dhaqan waxaa noo adeyn hal qof bixiyay marka wax cuno inta kale ay iska baxaan kadib dhalinyarada laga tagtay lacagtii baan diriyay maamada gurina eegaysay ay wacday marka kaale bay u jiray say u siri ama wiil baan dhalay 18 buu jira maalinku baangaari baa suuqa ay dambeysay qof kastaana ama u dee waxba isuma darsana qof hadduu qaangaaro qof kasta dee akoonkiisa u khaas yahay adinkuna 10 dhalinyara ku dhawaad baad keliga lacagta bixisay iska baxeen haddana heshiis ma tihi waa islaynaysaa Soomaaliya dhan bay tusaale soo qaadaysaa maxaa idinku dhacay u jira tusaale ahaan dhalinyarada ka soo qaatay Soomaaliland dee haddaan muran iyo qajac galay oo oral society baan ula tiriyay ana doobeer galay sidii su'aalaha jawaab haya ma waxaan ku wari dad iska reebaajiyo reer guuraawan hayo xoolaha isku dagaala xoolaha isku dagaala iyo beeraha iyo waxa xaqi ma waa ka soo guriga dhigay gabaygan sameeyay markaa maxaa la isu dilayaa wuxuu leeyahay gabay dalan dalcayntii ka tagay guriga dayrtii dubaaqayga waataan ka jaray inaan dariishaayo deelqaaf mar buu leeyahay daqa raggaystaayo dembi iyo mar buu kugu noqdaa daano aakhire ha yeeshee mid baa daacadan diintu qarinayna anna inaan dabaabaa mar haba gabay daraadii aan daleeyo maantoo kalaa layga duubaya maalinkii taagan tahay intaa diiwaan inta agwada loo geliyahay isfaadiya dubka waa ka simanahay dhammaan diirka iyo muuqa diin quraynu wada haysanaa duulka aan nahayba deegaankaanu wadanaa waa degalka Soomaali halkii dirirku horaan naqiyo darar u doonaaye maxaa la isu dilayaa miyada maqin laabteena Soomaalidu dee waa dad iska reer guuraa hebadii waxba lama eego deegaanka cid baa iskale lama eego xaggii daruuri ka daadada xoolay wada daaqsadaas haddana way isdilayaan afartaas sidii danab la riday ma indareensiyey diihalanan qabin miyaa dirka ka hingaajay ha yeeshee halkan doodiyo doogu waaweriye Soomaali gebigeed haddii daaqad laga eego dad isdhalay dimaashiyo walaal ul iyo diirkeeda waa duul xigta oo aan lahayn dir la kala saaro maxaa la isu dilayaa miyada maqin laabteena Soomaalidu way isguursadaan waa in abti iyo hooyo iyo laba isqabtay dimaashiyo walaal way isdilayaan inagoo dayaxa gaarnay oo samada duulayna inagoo daruuraha cakaadacalka fuulayna qarankeeni waataan duminood qaraf ku daarnay durjoog sideedii waa inagii kala dayaameynay docdoodii duulkii sida deera iyo caawle hadduu roobku daaho oo dayrta hoga seegto qaar baa sidii dunyadii loo dawariyaaye diihaalka ku ulaayay baan cidi dareemayne taariikhda weli dararsan baan cidi ka daahnayne maxaa la isu dilayaa miyada maqin laabteena afartaas sidii danab la riday ma indareensiiyey diihal anoo qabin miyaan dirka ka hingaajay afar kalena deelqaaf la-aan darar ka heenseeya qaraxyadan isdaba joogiye dhiga dihanayo culimada la dabargooyoon cidi damaaqaynin duqowdii waxgaradkan sidii cawshi loo dilayo dumarka la daandaamiyey daqarka loo geystay dhalinyarada la duubsado haddana laga dilaalayo war miyayna diir naxaa lahayn dux iyo diintoona odayaasha waa laynaya culimmadu waa laynaya dhalinyarada dee qola kastaba dee intay raban kartay ku dhiibatay wax la isu dilayana ma garanayaan dux iyo diintoona afartaas sidii danab la riday ma indareensiiyey diihal anoo qabid miyaan diirka ka hingaajay afar kalena waa ugu dambeyn diirka gabaygayga aayad qoranaa jirtay waman kaana muumina mutacamida fajazaa jahannama khaalidan fiiha dee in la isdilaa kas la isku dilaa meel dee dinteenu way ka hadashay afar kalena waa ugu dambeyn diirka gabaygayga ilaah baa daliilna baray daaha iyo ruume digniintaan isa ku cad ayaan soo dariishanayaaye 5 walxood qofkii ruuxu diray deris ahaadaane jahanamo intuu dalaq dhuhu abi deganaadaaye care eebo
oo laga dibridin dagalka loo saariye nacala daa'imuun daahim duubka kaga taalo in cadaabka daran lagu rido hibo u doontaaye maxaa la isu dilayaa miyadama bilaabteen aayadda qur-aanka haddee 5 walxood baa nagula sheegay in dee qofkii la nacalado naxariista laga durkiyo dee waa wax adag haddana dee waanu weli isdooxaysaa طبعا maasadintaasi ku idashaa aad iyo aad guud ahaan daawadayaal maasadaasi waxay gabagabo u ahayd barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta waxaan u mahad celinayaa martidayda caawa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa kamaramaanka Shucayb Maxamed Kaahin dhanka farsamada iyo isku duwaridka barnaamijka iyo waliba habeynta waa injineer Cabdiraxmaan Dollar waxaan la socodsiinaysay isla markaana idin soo diyaarsay anigoo Nimco Axmed Xuseen tan iyo toddobaadka damayntiina barnaamijkan barnaamij nabad iskaga imaan doono waa bahda Bulsho TV iyo barnaamijka idin leh nabadgelyo haddii noola baratamo qurux laysku soo baxo badidood haweenkaba untagtii ka sidataa